la sameeyay yaa loo sameysanayaa kaarka waxaa la yiri Soomaalida ha sameysto kaar aqoonsi ah war dalka xurma ah waqtigan xaadirka dalka Soomaaliya waxa gacanta ku hayo ururka argagixisada ee al-shabaab Soomaaliya xurma ah midkan hadda oo yani muxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir lagu sheegay ayaa ummadii wuxuu ku cadaadiyay macnaa waa dhac dadban waa dhac la rabo ummadda in lagu banaysto dhiiggeeda iyo maalkeeda waxaa la yiri qofka kaarkaas diido waa la qabanaya waa la xirayaa oo ruuxan miyuu ku wadan karaa kaarka siinka dheer ma la aadi karaa miyuu la aadi karaa balcad okay miyuu la aadi karaa walaweyn miyuu la aadi karaa Qoryooley waa maya dalkii oo dhan al-shabaab gacanta ku hayso wadooyinkii shabaab fadhiyo maxaa ummadda been loogu sheegay waxaa la rabaa in lacag laga aruurso dadka Soomaaliyeed waxaan arkay mid yani muxuu taliye booliska gobolka Banaadir Ali Gaab yiraahdo oo uu leeyahay yani muxuu ahaa hala sameysto kaar qofkii aan sameysan hanjabaad ka soo yirtay arintaas ayada shacabka Soomaaliyeed run ahaantii ma yani waa arin aad iyo dabar jab u ah haddii yani muxuu ahaa ummadii amaankeedina aanan sugnaynna la yiraahdo kaar sameysto oo iyo magaalada yani muxuu ahaa nimankan argagixisada wada joogo dadku cadaadiska iyo dhibaatada lagu hayo waxaan ku baaqaynaa ka xisbi ahaan halaga joojiyo wax kaar la yiraahdo shaqeynayo ilaahay inta wada mala lacag baa la rabaa in lagu aruursado wariyaahi Soomaali kulligeed aleed ayadoo nabadgelyo yani nabadii Soomaali markay timaado ayaan gaari karnaa wax yiraahdo system oo yani muxuu ahaa kaarka aqoonsiga lagu sameysto dalkan xurma ah waqtigan xaadirka dal la haysto ayaa waxa la leeyahay quudan jannah u soo goray guriga Soomaaliya hore ugu maamahday war dalkan waa la haystaa dalka marka hore ha la xoreeyo dalkan waa dal ajaanib ciidamo ajaanib baa jooga dalkii yaa loo goynayaa kaarka imasa jawaasiis baa ku dhex jirta imasa wadamo shisheeye oo ciidamadooda meesha jooga imasa shaqo soo dooratay oo meesha yani muxuu ahaa ay ku nool maamulka Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulka gobolka Banaadir waxaan ugu baaqayaa inay joojiyaan waxay wadaan waa wax yani ka baxsan sharciga waqtigan xaadirka ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.